Assalaamu calaykum daawada kusoo dhawow kanaalka Xiskaal. waxaanu soo gaarnay casharkeena 8aad ee Quickbook. waxaan noo furnay company-geena Jaamac Company. casharkeena ugu dambeeyay ee 7aad waxaanu kusoo baranay sida loo sameeyo receive payment. qof lacag ku leed markii uu lacagta ku keeno sida ugu jar lahayd ayaanu soo baranay. casharka maanta waxaanu ku baranaynaa sida akoon loo sameeyo, kadibna akoonka aad sameysay sida lacag ugu soo wareeji lahayd. tusaale ahaan oo kale undeposit funds-ka lacagaha aan weli akoon ku dhicin, alaabaha aan gadnay iyo adeemihii noola keenay meesha ku dhacayeen waxaa loo yaqaanaa undeposit funds. maadaama lacagta undeposit funds ay tahay sida ugu soo wareeji lahayd akoonkan aad sameysay ayaanu baranaynaa. intaana sameyn waxaanu soo fiirinaynaa reportkeeni. reportka kadibna waxaad tegaysaa company and financial, kadibna balance sheet-ka fiiri. balance sheet-ka markii qaaradan kusoo baxda balance sheet-ka ah sidan weeyaan. akoon receivable deymaha ku maqan waxaa weeye $100. cali xasan ayaanu ku leenahay sida casharadii hore ula socotay. alaabaha ku yaalo qiimaha ay ku kacayaan waxaa weeyaan $7,100. sidoo kale undeposit funds-ka lacagta ku jirto waxaa weeye ayadana $420. marka waxaa isla eg equity-ga iyo asset-ka ayaa isla eg. shirkadda wax deymaha laguma lahan. haddii deymo lagu leeyahay liabilities-ka iyo equity-ga wuu kala saari lahay. deymaha intaan weeyaan ayuu dhihi lahay, equity-gan intaan waaye. marka maadaama aan wax vendor wax kasoo deyman oo vendor weli aana sameynba, equity kaliya ayuu calaamadeynayaa. marka casharada xiga ayaanu ku baranaynaa sida vendor wax loogu soo iibsado, deyn loogu soo iibsado, cash loogu soo iibsado. marka maadaama casharka maanta waxaanu sameynaynaa undeposit funds-kan lacagta ku jirto $420 ah ayaanu akoon qasnad aanu sameyno ku shubaynaa. qasnadaas ayaanu ku shubaynaa lacagtaas. marka ugu horeyn waxaanu sameynaynaa marka akoon sidii loo sameeyaa. akoon marka aad rabto inaad sameyso waxaad tegaysaa qaybtan ay ku qoran tahay list, kadibna waxaad tegaysaa chart of account ayaa ku dhufanaysaa. si fudud waxaa u tegi kartaa control A. marka ay imaato meeshan right click dheh, kadibna new ka dooro. akoonka sameynayso waa noocee ayuu ku weydiinaya, ma income, ma expense, ma bangiya, ma equity, waxaanu dhan ku weydiinaa. marka maadaama aanu qasnad sameynayno akoon oo lacag kusoo shubayna sameynayno bangi ayaa la dooranaysaa, kadibna continue dheh. qaybtan markii kuu soo baxdo akoonka magaciisa ayaa muhiim inaad geliso. maxaa u bixinaysaa akoonka? qasnad u bixi, general account u bixi, ama general cash u bixi, ama all cash. all cash ayaa u bixinaya anigu. adiga magaca rabto u bixi all cash, lacagaha oo dhan midkii kusoo dhacaan dheh. save and close dheh. kadib akoonka isla markii uu ku sameeyay akoonka balance-giisa 0 weeyaan. marka lacaga hadda kusoo wareejinaynaa laba qaybood, laba siyood ayaa u soo wareejin kartaa. labada xababa waa maraynaa. marka ugu horeyn waxaa sameynaysaa si aad u soo wareejiso qaybta koobaad bangi meesha ay ku qoranta tag, kadibna waxaa sameynaysaa transfer funds, lacag wareejin meesha ay ku qoran tahay ku dhufo. halkan taariikhda ka sax. meesha ay ku qoran tahay transfer funds from akoonka aad ka soo wareejinayso ayaa gelinaysaa. waxaad leedahay undeposit funds ayaan kasoo wareejinaya. isla markuu kuu dooray akoonkan waxaa ku jira kuu muuqato $420 lacaga. halkan waxaa gelinaysaa akoonka aad ku wareejinayso. akoonka aad ku wareejinayso geli meeshan all cash dooro. asigana all cash waxaa ku jiro 00 weeyaan oo ku leeyahay. marka lacagaha aad wareejinayso halkan geli. waxaa sameynaynaa marka $420 maadaama ay ku jirto 400 ayaa hadda qayb sidan u wareejinaynaa, qaybta kalena 20 ayaa u wareejinaynaa. marka maadaama laba siyood aan sameyn rabno 400 wareeji, 400 wareejinaynaa, kadibna waxaa leedahay save and close. isla markii akoonkii waxaa soo fiirinaysaa, kadibna waxaa list, kadibna chart of account ka fiiri lacagteena kusoo shumatay. all cash waxaa ku muuqatay in 400 lacag ku jirto. 20 ayaa noo dhiman, sida kale ayaan u wareejinaynaa. haddii aad rabto sidaana kuu fudud waa sameyn kartaa bangi inaad sameyso, inaad transfer funds sameyso. sidoo kale waxaa sameyn kartaa inaad tagto company, kadibna meesha ay ku qoran tahay make general journal ku dhufo interest. halkan markii kuu soo baxdo waxaa sameynaysaa qaybta okay iska dheh. halkan waxaa gelinaysaa taariikhda, kadibna transaction lambarkiisa geli amba boonada lambarkeeda ku wareejinayso lacagta. halkan akoonka aad lacagta ka wareejinayso ayaa ku hormaraysaa undeposit funds weeyaan. meesha maadaama debit iyo credit oo kala leeyahay. asset maadaama undeposit funds uu asset yahay, markii ay lacag badanayso ama lacag soo shubayso debit ayaa la doortaa. markii aad lacag ka wareejinaysana credit ayaa la doortaa. maadaama debitka uu yahay markii lacag lagu soo shubay akoonkan,
ama uu korayo asset oo dhan wuxuu ka bataa debit, credit wuu ka yaraadaa. marka maadaama akoonkan ay yareynayso oo lacag ka bixinayso, halkan creditka ku qor lacagta $20 ayaa ku harsaneyd, $20 ayaa wareejinaynaa. qaybtan kalena waxaa sameynaysa all cash dooro, ayadana akoonka ayaan kusoo shubaysaa $20 asiga kuu geynaya debit. marka maadaama akoonkan asigana aad lacag soo shubayso, debitka dooro, kadibna save and close ku dhufo. waxaa soo firinaysaa inay 20 kugu soo korortay listi, kadibna chart of account ku dhufo. halkan waxaa kaga muuqdo in lacagta kusoo korortay ay tahay lacagta ku jirta akoonka all cash inay tahay 420. undeposited fundskana asigana wax lacaga kuma jiraan. haddii aad fiiriso, si qaldi an leeqor asaa kusoo baxayo. undeposited funds waa kaas 00 waa isagana lacaga ku jirto. marka akoonkaas ayaa lacagta qasnada kusoo wareejin kartaa, labadaas siyoodba usoo wareejin kartaa. inaad banki tagto kadibna aad transfer funds sameyso, iyo inaad make general journal sameyso, labaduba waa mari kartaa, labada wadaba. marka sidaasaa usoo wareejin kartaa markii aad rabto undeposited fundska lacaga ku jiro oona weli akoon ku dhicin. haddii rabtana akoomo kale oo lacaga ku jiraan oo kale ayaa jiraan, sidaan oo kale ayaa maraysa ayagana. cashirkan maanta intaas ayaa kusoo gabagabeynaya. cashir kale oo 9aad intaa ku kulmayno. wassalaamu calaykum.